saaxiibayaal sidoo kale ciwaanada kale hadda ii muuqda waxaa kamid ah saaxiibayaal hadda aan dhihi karo waa idinla wadaagi karaa actarka lagu magacaabo Jaalanji Darshaan ayaa dib u soo laabtay saaxiibayaal maadaama ninkan odagaa shaqadiisa si toos ah loogu fasaxay oo shaqadiisa uu gudo kalo sidaa darteed saaxiibayaal filimkiisii Devil oo shirkadda KVM Production oo soo saaraha ka ah saaxiibayaal waxaa la isla gartay hadeertaa shaqada filimka in dib loo ambaqaado maxaa yeelay shaqada filimka meel xasaasiya ayay maraysa saaxiibayaal sida marka horeba aan warbixinta ku oodeen ayadoo shaqada filimka ay socoto ayaa ninkan odaga kiis ku soo baxay sidaa darteed marka xabsiga ayaa loo taxaabay laakiinse maalmo kadib ninkan odaga kiiskii xogaay maxkamadda sare waa ay ka qafiifisay oo waa la sii daayay sidaa darteed marka ninkan odaga xor ayaa laga dhigay saaxiibayaal oo waaba la fasaxaba waxaa la yiri fasax ayaa tahay cid kuma haysatana haba yaraa tahay mala sidaa darteed marka filimkiisii Devil 16 Febraayo markii la gaaro waxaa laga soo bandhigi doonaa teaser aan inaba aan caadihin ayaa laga soo bandhigi doonaa saaxiibayaal sida hadda warbixinada aan ku helayno maxaa yeelay shaqada filimkana dib ayuu ugu laabtay hadeertaan wuxuu ku roojo weyn yahay saaxiibayaal in shaqada filimka uu dib ugu sii laabto oo hawshiisa hore u sii wato saaxiibayaal sida hadda warbixinada aan ku ogeey saaxiibayaal sidoo kale ciwaanada kale